Soomaalidu walaalayaal waa cunsur facaala waxaan akhriyo buugga wuxuu sheegayaa 30 sano kadib inaad idinku garatiin waa muhiim 30 sano kadib bariga Afrika waxa xukumi doonta Soomaali balad waa daraasad cilmiye weeyaan 30 sano maanta marka laga joogo kadib geeska Afrika bariga Afrika waxa ka talin doonta Soomaali si uga talin doonta Soomaalidu balad iyo kuma kala saarayaan Soomaali koonfureed iyo Soomaali Somaliland iyo Soomaali Djibouti iyo Soomaali maartay shanaad iyo Soomaali Kenya kuma yaqaanaan iyo waxay ku yaqaanaan tahay qof Soomaali ah qofka Soomaaligi isaga xukumi doona bariga Afrika buugaas wuxuu leeyahay qofka Soomaaliga wuxuu leeyahay saddex shay buu leeyahay buuri ninka Soomaaliga oo Afrikada kale ay lahayn kow wuxuu leeyahay buuri wax loo yaqaano dynamic waa qof aan fadhiisan ninkaas wuxuu diraasad ku sameeyay Soomaalidu waxay ka yimaadeen wadanada ugu kulul adduunka waxay maanta joogaan buuri Mareykanka gobolka dhada Minnesota oo dhulka ugu qabow waxaan isweydiiyay buuri si u yimaadeen meesha ugu kulul ilaa iyo meesha ugu qabow su'aasha labaad waxaan isweydiiyay buuri si uga sameeyay nolol horumar leh marka waa dinamikiya waa qof dinamikiya arinta labaad qofka Soomaaligu leeyahay buuri waa muqtaxim qof nolosha ka cabsada ma waa qof jeeda adarkaysa waxa lagu leeyahay warbadaha waa lagu dhimanaya ma fadhiisan dhalinyaradi way soo socdaan sheekada ma dhageystaan waa xaraan iyo wala dhimanaya iyo iska imanayaan badda soo socdaan iyo ku arkay waa wixii Mareykanka ay ku qabsadeen ragii maartay ka yimiday Ireland ka yimaadeen badda waa lagu dhimanay waa la soo mareeyo Atlantic intii soo gaadho ma noolaatay intii kale waa iska socotay marka qofka Soomaaligi حتى نين قبل سفارة جيبوتي كشغل تمرين كل شيء كستوى حاجة تري لديكم روح أنجلو ساكسونية الصومالي ده واحد لديهن روح نف واحد لديهن أنجلو ساكسونية يعني إيرلنديين باتين ده واحد يعب سنة صار تري مركا قفك الصومالي أتاسع شجع أنا تصدحات قفك الصومالي أولي هي مهم كأوحويان قفك الصومالي قماشو تجو وحاجي سنة يا أنت أجوب بدن إذا نتيجس هو يدس قبل الحجاب كحاجي سنة يعني كونفورت السودان بيتجين تكانة كفرين السودان بكون ولد مسلمة كونفورت السودان وليجو تراويح ميتك إلا أي مدينة صومالية كفرتين مارتي أديجياليو أي كفرتين مالا سوققة أي حوالي ذي ما كفرتين وحيدا ورمضان بأي مدينة صلاة يوم تكنا مسكين لجوت كذا مين اللي بتكنا طبيعي بعدين لبا حافظين النقص وضعنا حمر كضر لبا حافظ على لعت اللي جبته لكاني مركز هيك كنت كذا برنامج دي marka Suudaantii gaalada hay'ad Afrikaanka ah socoto banaanadiyo salaad ugu tukanayo wadadkii kadibna maxay noqotay daahirad dadkii Suudaantii badi fataxtu min la yakhwad nofurta albaaki sidii halkan bal ugu xijaab lagu qaadan jirin Soomaalida horteed lama qaadan jirin Soomaaliga waa qofka waa muqtaxim nolosha kama cabsado marka arintaasina waa muhiim taasina way garanayaan arin saddexaad ku saleeyeen diraasadoodu waxa weeyaan qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay in uu noloshiisana sameeyo nolosha dadka uu mas'uulka ka yahay inuu sameeyo koonfurta Afrika fadhiya nolol buu ka sameysanayaa uu soo waariday hadito dadka kale ka dambeeyay war hebelow soo dhaqaaq adna soo dhaqaaq noosana noloshiisa marka uu balaarinaya ninka Soomaaliga marka maxay u bixiyeen Soomaalidu qaswi waxay qaadaan dagaal socod iyo qaadaan okay marka dadka saa u fikiraya caynkaasa marka aan doonay inaan noloshooda maxaa la sameeyay arin buu Ilaahay siiyay hadana dhulkii hoostiisana maxaa yaala barwaaqo aan garinin nin la yiraahdo Anwar Ishqi waa caalim istiraatiiji oo dawladda Sacuudiga u shaqeeyo mukhabarada wuxuu yiri gaaska hoos yaala Ugaadiniya meesha soo yiri Soomaali galbeed Ugaadiniya gaaska hoos yaala buri waa bad waxa imika loo baa badkaas halka yaala oo ka bilaamaya dhulka diradaba gudusheeda ka bilaamaya oo ku dhamaanaya halkii wuxuu ku dhamaanaya xeebaha badda badweynta India dhinaca kale tan uu soo baxaya ilaa ay wuxuu imanaya Zeylac iyo lagu hayo imanaya waxa inta leeg ee meesha fadhiya isha lagu hayo waxa loo dhiganaya inuu badiil ka noqdo batroolka carabta markuu dhamaado markaas dagaalka istiraatiijiga lagu hayo waxa muhiim ah in dadka Soomaalidu ay fahmaan waxaa jira arin saddexaad oo jecelahay inaan aqoonyahanka Soomaalida halkan iyo culimada kala hadlo aqoonyahanka Soomaalida iyo culimada waxa weeyaan waxa u yaala inay dadka Soomaalida madaxooga furaan madaxweynuhu uu shaaxiday madaxweynuhu waa in la furo waa laba shay laga furo waa in qabiilka laga furo labo
وإن لغفر إن نقروينا عدوغينا عدو استراتيجي لنا أنكو عدو سكمنين لكن عدو استراتيجي وبرق أفريقيا نلفرديان لنا هاي هي عدو استراتيجي ونغفك لكن إن حكم يميل فك إن سكن دريا هي جرا عدو قال إن حقوق ولا صعنه ولا جاب مارمان وأنا مهم يا واحد ذاك تسكره وأقويها كي علماء وإن يتصان دجال بين أقول حصاده يعني إن الله قريب معها وحاسوكين دول دريا دول ديو ينامك معها وإمارات يتركي وحاسوكين دول هيستا مركا أنكون أن كلمتين أنيقو قرحة ما تدعي ما أرني وقرح شباب وكحوجي شباب وقرح استراتيجية وقرح الدور ذا كذا بيان وقرح أركتيال كذا بيان قرح أساس كلمة دعينون قرح نوح كحوليه وحبضم كحوليه هاي نكيل الديبي محد هذا قلب دقح وكحوليه دقح قلب يعني شركة إمك كدعية قبل هذا شركة إمك السمينية وكحوليه هاي هذا الكي دولة إمارات كصوبة وكحوليه هاي قاعدة عسكرية فريس محد هذا تركيدو أي تروح سمينا تمكن أعيدا كصوماليا ومن لو يعضي إلا كسمايا ونقبيل لهين وعسكرية وعقيدة إيمان له فكرة له ودوك الدفاع وحاسي وحكانا يا سويدين وين أدوك مركاسي waxa in la garto oo madaxa loo furweeyo arinta ugu dambaysa qorada aan xagan kala hadlaa wax weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa muhiim ku ah ikhwaani fillah adduunka maanta waxa midoobaya dadku waxay ku midoobayaan qowm waxdhad marka laga diin aqli han yeelano meelaha markaan fadhino anigu reejibuuti baan ahay anigu Somaliland baan ahay anigu Puntland baan ahay anigu Irtilaad baan ahay wax macna ay leedahay ma jirto kurdi qowm bay noqonayaan waxa weeyaan ummad walba waa qowm ummad bay noqonaysaa markaad kor u socon weyd hoos ba u soconaysaa haddaan anigu maanta aan sheegto inaan meel yar ka mid ahay waan sii socon marka dambana anigii walaalkay baa laba bax kala noqonayna waa basal ma dhammaanayso laakiin haddaan kor u socdo waxaan imanayaa Soomaalinimo qofka Soomaalinimada ka xanaaqa waa dulli weyn qofkaasi wuxuu doonayaa hado anigu waxaan ku dhadaa walaalaha reer Djibouti canfarta ah وإنكم عفروي بدعشين أنا صومالوي ما جعلها إيش المشكلة؟ ما في مشكلة هذا كل أسكاه هو عفروي ولا كي بعتها مسلم بعتها كنا هو صومالوي ما أنت أن كتنازل إن الصومالي نقولنا يندمني أيام تمام دمني وأسقوا لا فكرنا سوى حلوم معمولي ولا قلدمي حميس أدراك قلدمي محل قلدمي كنا قلدمي اسمع عمر قال قلدمي وحوا شيخ سكرنا لكن وحن لقيش سكري وحويان ما الصومالي ما يا قال لنا شكو ما haddaan taagelino islaamada gabri gelina shako labada shay ina wada difaacna wax weeyaan hadhow xataa haddaan isku imano oo mid ma noqono aan orno maanta carab baa doonaysa in hal dawlad noqoto waa la burburiyay laakiin hal dawlad noqda waxa jira wax qowmiya carabiya waa la doonaya rag baa ka hadla waxa jira qowmiya kurdiya qowmiya turkiya qowmiya antakiya dadku faransiisku waa qowm waa la doonaya adiga maxaa ka baabiinaya marka dhalinyaradu inay dhaafaan maaragtay baa mushtarku waxay sameysteen tukaan quraato دهبشيل باكدسان صومالي ودا دهبشيل صوماليلاند ويا دهبشيل ما هاد دهبشيل صوماليلاند مالكيسو كجرا او مالتي اودغي الهجر محوها ان بنك سلام لجبت كسب محو اودغي مالت شير يا هرمود مالكيسو كجرتا في كل مكان واحد هذا حدود ودافع واحد هذا عابره الحدود حدودي واسك دافتي تجارتي ودافع علمadu in xuduud dhafaan علمadu in xuduud yeeshaan ma joografiya marka saad raad saas man jeclaan laha insha Allah ta'ala